ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa shanaad waa niyada ayaan ka horeysiinaa shaqo walba. Bar ilmahaaga wax walba oo aan qabanayno in aan u qabanno si niyad sami ah oo Ilaahay raali nooga yahay. Haddii ay tahay shaqo la qabanayo iyo waxbarashaba. Ogow waxaa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. camal kasta niyada baan ka horeysiinaa. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.